waxaan leeyahay reer Mandera iyo muslimiin meel kasta joogaanba Ramadaan Mubaarak. Taa ka bacdi meeshaan ku sugnahay accountiga Mandera qaas ahaan magaalada Mandera. Runtii marxaladda hadda ka jirta marxalad adag waaye iyo waqtiga uu yahay waqti abaar ay jirta jiilaal jiro oo raxda aad u kulushahay ayaa haddana waxay ka jirta steamer la'aan ama koronto la'aan wada saameysay bulshada gibigeed saameysay ayaa ka jirta. Mandera steamerka Mandera laga isticmaala labada ward township iyo Neboy iyo Qalaliyow iyo pad oo Libixiya ilaa meesha Aresa la yiraahdo steamerka magaaladan ayaa supply gareyso. Runtii waayay la soo dhaafay waad ogtiin dhowr sano la soo dhaafay sidii devolution u bilaabatay 2013 ilaa waqtiga hadda aan joogno kulley waa jiri jirtay steamer waa jiri jirtay say ku jirtay baa ku jirta waxaa jirtay 2013 ilaa 2016 steamerka Mandera saan buuxa oo na dhoof waa maxay yeelay company-ga oo madaxa binaan oo Kenya Power and Lighting Company generator-kooda marna waa halaabayeen marna waa hagaagayeen. 2017 ayaa madaxdii waqtiga jirtay ama governor ha adeena ama xildhibaanin ha adeena ayagoo isgarabsanayaan madaxweynaha Uhuru waqtigeeda aan laga codsaday in outsourcing wax la yiraahdo lagu sameeyo oo company-gan Kenya Power and Lighting generator-ka laga qaado company la Greco lira la si generator-kaas arrintu waa la aqbalay 5 sano waxa la isticmaalay company la Greco ayaa mashiimaha lahayd oo run gareynaysi stationka Mandera oo supply gareynaysi mashiimahaas run ahaantii waxa fiican horta inaad ogaatid reer Mandera ahaan intay dhanta loo baahan yahay yani power-ga loo baahan yahay intay dhantahay waxaa loo baahan yahay ilaa 4.5 megawatt ay Mandera u baahan tahay ilaa waqtiga hadda la joogo. Arrinta markay bilaabatay 5 sano markay dhamaatay oo nimankii Greco contract ay dhamaaday 2023 waxay ahayd in contractor nimankaas in loo kordhiyo 5 kale loo kordhiyo ma ay dhicin dawlad cusub ay maaday kulley dabagalkana waa iska xumaa company-ga asaga hay waqtiga hadda dhamaaday looma kordhin qandaraaska looma kordhin waxa la yiri meesha ka guuro waxa lagu soo reebay Kenya Power ayaa lagu soo reebay oo laba generator oo iska tacbaan haysta ayaa lagu soo reebay marka dhibkii hore oo 5 sano ka sii horeeya lagu laabtay dhibaato hore meeshaas bay ka timaaday markii runta loo isu sheego arrinta korontada waxa way energy la yiraahdaa county shaqo kuma lahan national government ayaa shaqo ku leh national government-na ayaga ayaa laga rabaa inay keenta korontada hal ay u keenta macnaheedu aqlab laga rabo MCA Faisal laga rabo qofka laga rabo waxa weeyaan national government iyo dadka ku shaqada leh inay keenaan waxa la sheegay markaan wareystay ana waan ogaa in 4.5 megawatt loo baahan yahay mashiinada la keeni karo dhibaatada looga bixi karaan waa 4.5 megawatt mashiin loo baa looga bixi karaan mid keer laguma bax Kenya Power and Lighting waxay haystaan laba mashiimood tiibo qawadeeda ay tahay 3.5 350 iyo 350 oo laba meelood marka la isku daro waa 700 oo megawatt ayaan hore mashiimaha la keenay labadaba marka la isku daro waxay lahayn 1400 midna 700 ahayd midna 700 oo megawatt marka la isku daro 1400 ilaa 700 oo haysatay ay haysatay waa 2 megawatt waxaan gaaraynin labadii la keenay hal waa halawday markan Kenya Power aan wareysanay labadii la keenay oo min 700 hal waa mid 700 kaliya hadda shaqeynaysa mid 700 leh ilaa 700 Kenya Power Light ay lahayd meesha looga baahnaa 4.5 ayaa waxay ka shaqeynaysaa 1.5 min bulshada reer Mandera dhibkaas waa la isku wada jiraa maxaa looga bixi karaa waxa looga bixi karaa company-ga hadda baashlasi waa company local oo waxa la yiraahdaa Encom ayaa la yiraahdaa mid laga soo qaaday labada generator yar company-ga hore shaqada aad u wadin waxa la yiraahdaa Greco hasab ahaatay mid Encom-ka nafteeda hadii la dhihi lahaa shaqadan adinka la wada wareego oo manage garee equipment-ka idinka manage garee oo sidii ay isla wada shaqeyn lahayd KPLC dhibka waa laga bixi lahaa waxa la yiraahdaa idinka 1.4 supply garee Encom inta kalena anaga isku xisaabtamayn KPLC marka waxay sheegeen horta runtu waxa lagu ogaan karaa qofka inuu taga meesha taga xafiiska ay dhibka ka jirta macayl KPLC waxa weeyaan company oo madax binaan county ma hoos yimaada National Government Ministry of Energy hoos yimaada waa parastatal oo sideed u madax binaan tan iyada marka in laga wareegto maahan maxay company-ga meesha waxay u joogtaa beecsharo ay u joogtaa
lacag bay stimerka markay bixiso lacag bay dadka ka qaadaa beecmushtarun bay meesha u joogaan yani faa'iiday u joogaan hal maalin oo stimerkooda dansan yahay ayaga waxay ku tahay minus bay ku tahay ayaan hore waxaan arkaya dad reer Mandera ka mid ah oo shacabka Mandera ka mid ah oo eedeynaya MCA township eedeynaya runtii MCA township awood uu stimer ku joojiyo ma laha awood uu gamburga inta ugu tagada stimerka hala damiye ma laha qofka marka asoo wanaag ugu maqnaanaad xumaan ugu malaysana wax oo qofka islaamka ku fiican ma ahan aniga waxaan ogahay MCA Faisal iyo governorga inay Mandera waqti Nairobi waqtiga ay joogaan ay u tageen wasiirka energy ay u tageen PS ay u tageen maalin kasta ay ku dawmaqeen hadda maanta aan hadlayna naftigeeda waxaan ogahay inay saaki la joogeen wasiirka energy ay la joogeen aan warkeeda haya marka waa lidin maqan yahay yani governorga ama MCS ka meesha laga soo doortay dadaal badan bay wadaan wixii intaas ka gooni ah dadka haddii ay wada shaqeeyaan oo bulshada maxaa u dan laga wada tashto bulshada waa shaqada way wada gaaraysaa laakiin haddii la yiraahdo siyaasa ku jirto kambuni oo madax binaan la yiraahdo siyaasa ku jirto oo MCA ka dambeeya arrintaas waxaan u malaynaa arrin ilaahay ka dheeri waayo wax fiicanna ma ahan reer Mandera dhibkan waan iskula jirnaa wixii dadaal oo laga geyn karana waan ka geynaynaa countiga haddaan joogno oo MCS ka macal governorga wixii dhankayna anaga dadaal loogu soo aadan waan ka samaynaynaa laakiin idinkoon hilmaamaynin stimerkan yay shaqadiisa tahay ninka Ruto la yiraahdo national government ay shaqadeeda tahay marka meesha ka jirta magtu baadi meel ay jireen lagama doono baadi waxa laga raadiyaa meeshii raadkeeda u baxa laga raadiyaa marka KPLC na stimerka ma damin hayso eesha looga baahnaay 4.5 megawatt ayaa hadda waxay shaqeynaysaa 1.4 wax macquul ah maaha Mandereeda hore maaha way weynaatay waqtiga aniga meesha xildhibaan ka ahay waad ogtiin lineka BP1 anaga xiri ilaahay ka sugo anaga xiri kan qalaaliyo aresa anaga xiri buurabor anaga xiri helishid anaga xiri barwaaqo inta badan anaga linkaas extension ku sameynay dadka waa magaalada way weynaanaysaa maadaama ay weynaanaysaa marka baahida oo stimerkana way si badan haysaa midaan hadda joogto marka reer Mandera inay ayagana sameeyaan accountability ay ku sameeyaan dadka ay soo doorteen oo wax rasmi weydiiyaan ayaan hore markii generator la keenay fanfare iyo qayli iyo balaaya magaalada ka jirtay markeeda in la weydiiyay horta generator la keenay qabuudooda xagay dhan tahay baasha la keenay intay dhan tahay what is the capacity of generator la keenay generator loogu talagalay inay xaafado gurigo ay nal ka shido lama dhihi karo Mandera idaala nal ka shidi kartaa marka tan aan ka ognahay midaas aan ka ognahay taas waaye haddii aan sabarna in allaha maca saabiriin dadka waa inay sabraan aan wada sabarno oon ku sabarno wanaagga iyo dhibaatada lagu sabro iyadana ummadda waan u dardaarmaya annagoon saaxanaynin oo county ahaan wixii aan ka dadaali karna ka dadaalayno dadkii u baahan inay intay wax ka jiraan oo maxaa yeelay wax kastaba waxay u leeyihin khibrad ay leeyihiin xaggee laga maraa oo xaggee wax ka qabanaa ayaa ka fiican siyaasi ayaa ku jirto dhibaatada Mandera haysa siyaasaha ku jirto waxa ka fiican yaa wax ila qaban kara xageen wax ka bilownaa sideen dhibaatada Mandera ku xalina ayaa ka weyn ayaa ka fiican marka dadka MCA-ga township ka dambeeya ama siyaasada meesha ku jirtana waxaan idin cadaynayaa meesha siyaasad kuma jirto capacity la'aan ama awood la'aan ay mashiimadaas leeyihiin ayaa meesha ka labada la keenina KPLC waxay sheegeen mid inay bishaqeyninba oo mid kaliya ay shaqeynayso oo 700 megawatt ay hadda shaqeynayso iyo labadoodii 350 iyo 350 waa 700 marka la isku daran ay tahay 1.4 megawatt ay tahay marka dhibaatada jirtaa waay waxaan kula dardaarmaa marka dadka hadda national government u xil saaran inay ka codsadaan madaxweynaha ama wasiirka energy ay ka codsadaan baashaan inay outsource gareeyaan kambuniga loo wada dhiibay wax mashiimaha kulli loo wada dhiibay dhibaatada sidaas baa looga baxaya